بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كتابك 100 حديث أيان ولي مركا كجرنا، waxaan soo maraynay ama aan ka soo baxnay xadiidkii 6aad, kaasoo aadna loogugu tirtirsiiyey inaan qur'aankana akhrino, nadaafadana aan ku dadaalno, iyo umuuro badan oo noocaasoo kaloo aad iyo aad u wanaagsan. xadiidkii 7aad can abi saciid iyo wa abi hurayrata radia allaahu canhuma. saxaabiga lagu magacaabo abi saciid iyo abi hurayra labadoodaba waxay nebiga xaggiisa ka wariyeen sala allahu calayhi wasalam, qaala inuu yidhi nebiga, maa yusiibu ma asiibto almuslima qofka muslimka min nasabin daal ama dhib, walaa wasabin jirana ma asiibto oo xanuun ma qabto, walaa hammin murug, walaa xasanin tiiraayo, walaa adaa iyo dhibba, dhib noocyadiisa kale oo dhanba, walaa hammin hammiga iyo hammiga waxay ku kala duwan yihiin. hammiga waa murugta xoogga badan ee aad iyo aad u adag, xataa shawka qodaxba ha ahaato, shawkadaasoo yushaakuhaa durta, ilaa haddii ay jirto arrintaana kafara allaahu alla wuxuu uga asturaa bihaa ayada min khataayaahu gafafkiisa, dembiyada uu galaa ilaahay uga dhaafaa subxaanahu wa tacaala. waxyaabaha ku dhaca ayaa ilaahay uga dhaafaa. muttafaqun calayhi. nasabka waa tacabka markaa loola jeedaa. wasabkana waxaa la yidhaahdaa alalam iyo wasaqam daa'im. waa cudur aad iyo aad u adag, ama saqiimnimo iyo xanuun qofku ma asiibo, daal ma asiibo, ee qodax durtay ma asiibto, hammi iyo tiiraayo iyo murug ma asiibto. waa hadduu muslim yahay, haddana uu ku sabra intaa, ilaahay dembigiisuu uga daadaya subxaanahu wa tacaala. gabar qandhaysan buu rasuulku u soo galay baa la yidhi, markaasuu ku dhahay, maa laki ya umusaa'ib ama umu musayibey, maxaa ku asiibay, maxaa kugu dhacay? markaasay tiri, qandha i haysa, barakada allah ka qaadee. baraka beeshada qandha i haysa rasuulkii allow, ha caynin buu dhahay qandhada, waayo qofka mu'minka hadduu ku sabro ilaahay dembidhaaf buu ku siiyaa subxaanahu wa tacaala. xadiidku waa bishaaro cadiim ah, wuxuuna noo tilmaamayaa in dhibaatooyinkana asiibaya laftigeeda alla uu noogu talagalay in xasanaad badan markaa ku helno. xadiidkii 8aad can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga, laysa ashadiidu dirac lama yidhaahdo shadiid, ninka geesiga ahee diraca ah, bisuracati ninka legdanka badan, ninka musaaracada ciyaare ee inta nin kastoo xoog badan soo qabta dhulka dhigee legdaa, kaa ma aha geesi, kaa ma aha shadiid iyo sujaac. inama ashadiidu shadiidku diraca ninka geesiga macnaha alladii yamliku waa midka hanta nafsahu nafsadiisa, ciliya cinda alghadabi xanaaqa agtiisa. muttafaqun calayhi. geesi baan dhahnaa ninka dagaalyahanka ah, geesi baan dhahnaa ninka mar kastoo masaaracada yimaadee soo kora dhulka dhiga ee legdaa. geesi baan dhahnaa gabadha markay gabarh kale intay la dagaasho kor intay u qaaddo haddana dhulka dhigtaa. laakiin ma aha, xaqiiqdii ma ahan baa la leeyahay. laftigiisa geesi ha noqdo oo wuu yahay bacdamuu legday qof kasta, laakiin waxaa loola jeedaa geesiga diraca ah ee haddana mataqaanaa shareecadu ay ammaantay, kaa ma aha. waa kee laakiin? waa ninka naftiisa ama qofka naftiisa celin kara, hanan karaa cinda alghadabi xanaaqa agtiisa. waalkaadimiina alghayd baa loo baahan yahay, qof caradiisa qariya. war qof markuu xanaaqo canug yar uu ka xanaajiyo, kaftan looga xanaajiyo, qaylinaya,
indhaha guduudanayaan, marjiyadu bararayaan, wuxuu hayo kugu dhufanayaa. ninka noocaas hadduu qof kasta legduu dhulka dhigo muxuu yahay? wuxuu yahay ma jiro. saa darteed nafta ha la celiyo, khaasatan marka xanaaqu jiro. laa taqdab, nin buu ku yidhi nebiga intuu u yimid rasuulka allow ii dardaaran, ha caroonin. wuu soo noqday, ii dardaaran, ha caroonin. waa loogu celceliyey, faradada miraaran, qaala laa taqdab, ha xanaaqin. marka caradaa waxaa loo baahan yahay in qofka uu hanto. waidaa maa qadibuu hum yakfiruun, markay caroodaan bay dadka cafiyaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wixii lagu yeelaba haddaad meel ku qorto, wixii lagu caayba haddaad diiwaan geliso ood la soo baxdo, qofka markuu kuu yimaado qiimo aad leedahay markaa ma jiro. idan shadiidkii geesiga ninka noocaas ah ayaa markaa la yidhaahdaa. xadiidkii sagaalaad can ibni mascuudin radia allaahu canhu can الnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala, wuxuu dhahay nebiga, rasuulku wuxuu yidhi, ina asidqa runtu yahdii, qofku waxay ku toosisaa oo ay ku hanuunisaa ila albiri wanaagga. qofka runlowga ah ee runta badan, runtu waxay tustaa oo ay ku hanuunisaa oo ay gaarsiisaa ila albiri wanaagga. wa ina albira wanaaguna yahdii, qofku wuxuu ku hanuuninayaa ila aljannati, janno xaggeeda. wa ina arajula ninku, naagtuna waa la mide, qofka layasduqu wuu run sheegaa xataa yuktab ilaa la qoro cinda allaahi ilaah agtiisa sidiiqan runlow. allaahu akbar. rabbi xaggiisa haddii run badane lagaaga qoro, maxaa kuu dhiman oo kale? min annabiyiina waasidiiqiin, nebiyada sidiiqiinta lagu xijiyey. xataa shuhadada waxaa laga hormariyey runsheegayaasha. min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa, booskii saddexaad bay galeen. marka saa darteed ilaah agtiisa sidiiq lagaaga qoro, run badane. wa ina alkadiba, beentuna yahdii waxay qofku ku hanuunisaa ila alfujuuri, faajirnimay gaarsiisaa. wa ina alfujuura, faajirnimaduna yahdii ila annaar, naartay qofka gaarsiisaa oo ay ku hanuunisaa. wa ina arajula ninku, naagtuna waa la mide, layakdibu wuu been sheegaa, qofka wuu been sheegayaa xataa yuktab ilaa la qoro oo looga qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa kadaaban, beenlow, been badane. subxaana allah, muttafaqun calayh. ilaahay laa yuxibu alkaadibiin, laa yuxib taqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala, allaa lacnat allah cala alkaadibiin cala aldaalimiin. intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay necab yahay subxaanahu wa tacaala. xadiidku wuxuu tilmaamayaa inaan runta aad ugu dadaalno, beentana ka fogaano. maanta beentu waxay noqotay nolol maalmeedkay ka mid tahay. dadaa shaqadoodu been ay tahay, way ka lahaan aroortii, waxay u socdaan shaqadooduna waa been. lacag bay ku soo qaataan, naftooday ku biilaan, ciyaalkana waa lagu biilaa, waciyaadu billaahi. waxa maanta samaha loo la'yahay oo khayrka loo waayey yay ka mid tahay. wuxuu ku fakerayaa beentuu sheegi lahaa berrito, ama maxkamad horteeda ha ahaato, ama meel kale ha ahaatou diyaarinayaa. un-ka markuu u tago, beentuu sheegi lahaa, waa la i kufsaday, saana la i yeelay. kufsigii baa run nagu noqday maanta. waayo qof kasta qofka kale intuu ka kiis culus yahay, kana been badan yahay baa la qaadaa. haddii runta la fiiriyo, qof kasta qofka kale intuu ka kiis yar yahay uuna ka run sheeg badan yahay, warqaddiisa waxaa ku qoran, waa la soo ceyriyaa. qof ayuu un-ka tegey maalin, ama gabar bay ahayd, markaasay qoratay, hooyadayna way dhimatay, aabbadayna shaqo ma haayo, anigana waxaan haya male, saaxiibulciyaalna waa nahay. sidaan u joogay baa nyaanyan gedi jiray, dagaalkii baa nagu dhacay, 3 madfac baa agteeda ku soo dhacay, waana soo cararay. naanaga tag baa la yidhi, oo aan miyaa kiis ah. maa balaayo sheegtid, hooyadayoo la kufsanayaan u jeedayo, aabbahayoo lugta laga jebiyo, qoorta waxa looga dhufanayaan u jeedayo, anigii 5 mar baa la i kufsadayo, ba iyo hoog sheeg. kaas waay waxyaabaha. saa darteed beentu qofku waxay ku hanuunisaa ee faajirnimaduna naartay qofka geysaa. qofku waa been sheegaa ilaa ilaa agtiisa looga qoro been badane, beenaale. muttafaqun calayh. xadiidkii 10aad can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala, wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi, rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, nicmataani,
laba nimco baa jirta oo maqbuunun fiihimaa ay ku kadsumaan gudahooda kathiirun min annaasi dadka intooda badan alsixatu waalfaraaqu waa caafimaadka iyo faraaqada kama faa'iidaystaan waa maqbuuniin rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey xadiidku waxa uu tilmaamayaa qofka mu'minka ah khaasatan waa inuu ka faa'iidaysto mtaqaanaa fursooyinka soo mara fursooyinka qofka soo mara firaaqadaa ka mid ah beri waad mashquuli saaxiibulciyaal baad noqonaysaa waxaa la gaarayaa xilli aadan dugsiga aadi karin aadan masaajidka aadi karin aadan duxada tukan karin inta firaaqada aad haysato oo aad ku tukan karto ood wax ku baran karto ka faa'iidayso ta labaadna waa caafimaadka waad socon kartaa muxaadaraadkaad xaadiri kartaa diintaad baran kartaa shaqaad qabsan kartaa adduunkaaga ku anfacaya caafimaadkana saa iyo wanaaggaasuu leeyahay waxaase garanaya caafimaadka wanaag inuu leeyahay ma garta midka maanta caafimaadka dusha ka saaran ee waxaa garta qofka cisbitaalka jiifa maanta cisbitaal buu saaran yahay ma soo bixi karo ma weysaysan karo waa la xambaaraya waa la qaada waa la dhigaa tubba meesha uga suran sanku habaa imtiqaanaa tubba laga geliyo hawada ka qaadana halkaasaa cuntada looga shuba isbitaalkuu yaala siw doona ma yeeli karo qofka noocaasi mar ilaahu yaa caafimaadku siiyey ka taagan tahay annagana caafimaadkaan haysan wax kuma barano kuma cibaadaysano adduunkeena xalaasha uguma shaqaysano qiila waqaala iyo dagaal baa meesha lala fadhiyaa xaaladda noocaasi ma wanaagsana idan qofka muslimka ou dadaal wanaagyaalka alla ku siiyeyna si fiican uga faa'iidayso si aad khayr iyo wanaag u gaarto adduun iyo aakhiro labadaa nimco ha laga faa'iidaysto waalay ciyaaro ayaan lagu ciyaarin boodbood yaan lagu samaynin sheeka malaayacni yaan lagu dhaafinin waayo dadaan haysan firaaqada maanta dadaan caafimaadkana haysan rabbi hana waafajiyo wabilaahi towfiiq wallaahu aclam